Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Tech Somali. Maanta waxaan rabaa inaan idin tuso laba keyboard aan aad ugu isticmaalo oo adinkana waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan. Dadkiina yaqaano wayba yaqaanaan, laakiin waxaan rajeynayaa inay faa'iido u noqoto. Kan ugu horeeya Flex ayaa la dhahaa. Wuxuu ka caawinayaa dadka qaar. Flex markaan soo galno, okay, wuxuu leeyahay default kana ka dhigay. Dadka qaar ma jeclo farta aad u yar yar. Matalan markay wax qorayaan oo kale oo keyboardka defaultiga originalka mobilada ay ku imaadaan dadka qaar ma jeclo. Marka haddii aad ka mid tahay dadka neceb farta aadka u yar yar, kan aad ayuu u fiican yahay. Weliba mararka qaarkooda intaan waa kasii weynay kartaa. Marka ugu horeeya haddii aad wax inaad ka beddesho u baahan tahay setting waxaa laga beddelaa language oo matalan luqadda aad rabtid aad ku soo download garaysanaysa. Aniga Danish iyo English ayaa igu jiro. Adigana haddii aad Carabi ku hadasho waa soo download. Haddii aad tusaale matalan Carabiga oo kale soo download garaya asigane wax yar ka bacdi waxaa ka arkaysaa meeshaan keyboardka markaan ku qoro hadda Carabi ayuu noqday. Haddii aad English inaad u baahan tahay ama luqad kale hoos falaarahan ayaa ka beddelaysaa adoo dhanka bidix iyo dhanka midig farta suulka jag ugu siinaya suulka dhinacan jag ugu siinaya ama dhinacan jag u siinayo ayaa ku beddelanaysaa. Marka waa intaas. Theme-kana waxaa waaye colorka oo wuxuu ka beddelayaa oo meesha aad wax ku qoraysid colorka sidaas oo noqonaya. Matalan oo kale kan oo kale waxyaabo sidaas oo kaleeta ayaa u isticmaalaysaa haddii aad u baahan tahay iyo qoraalkeeda iyo waxyaabaha uu ku qurxinaya. Marka aniga kan ayaan ku isticmaalaa oo defaultigiisa madowga ah iyo wixii aad u baahan tahay adaa ka beddeli kara aad ayuu u fudud yahay. Kan koowaad waa kaas. Kan labaadna waxaa la dhahaa Gboard waxaa iska leh shirkadda Google. Haddii aad sidan jag siisid active uu leeyahay kan hoose ayaan doortay waa dhamaatay. Hadda tusaale oo kaleeto waxaan gelayaa dhanka oo WhatsApp-ka kan oo kale markaa imaado tusaale waxaa rabtaa inaad qof wax u qorto wuxuu ku leeyahay meeshaan ayaan dooranaynaa settingkiisa sidan waaye. Normalkiisa sidana loogu talagalay ama saan. Marka meeshaan oo saddexda dhibcood ku qoran tahay jag siinaysaa. Kan haddii one hand waa taqaanaa matalan haddii aad mashquulsan tahay oo kale dhinaca rabtid gacanta haddaa bidix midig haddaad tahay sidan ayaa u qabsanaysaa. Bidix haddii aad tahane hadda matalan sidan ayuu wuxuu ku yahay gacanta midgeed sidan qiyaasay dhanka kalena sidan ayaa u isticmaalaysaa. Marka waa sidaas keyboardkan midaas waa gooni. Midda labaad saddexda dhibcood haddii aad ku noqotid hoos waxaa ku qoran translate ayaa ku qoran. Translate-kan wuxuu ka caawinayaa qof oo matalan adoo English ku hadla haddii aad Carabi wax ku qoraysid oo kale ama Carabi adoo ku hadlayo luqad kale haddii aad ku qoraysid oo kale. Hadda matalan English-kan oo kale haddii aan automatic qofka ma u turjumaya haddaa fiirinaha fiir qoraalka ma u baahnid inaad wax sii qorto fiir automatic inta ku qortay inta kugu soo qoraa ka bacdi calaamadda send aad leedahay. Waa intaas. Haddii aan kala beddelno oo dhanka oo keyboardka Soomaali ayaa soo horeeyo waa kana play oo soo qoray. Marka waa habkan oo kaliya wuxuu ka caawinayaa sidaas ayaa u isticmaali kartaa. Asigana waa dictionary. Haddii aad colorka u baahan tahay inaad iska beddeshana theme-kaas ayaa ku dhufanaysaa qaybtan buluug ayaa kasoo dhiganaya. Marka sidaan markuu yahay hal gacan qof ka isticmaalaya ayaa loogu talagalay in uu isticmaalo. Haddii aad full u baahan tahay labada gacmood aad ku isticmaalaysid sidaas ayaa ka dhiganaysaa keyboardkan. Marka waa intaas oo kaliya videogana aad ayuu u yar yahay. Marka inaan idinku sii dheereeyo ma rabo waxaan rajeynayaa inaad videogan ka heshay. Haddii aad channelkeena ku cusub tahay please subscribe dheh ama asxaabtaada dadka waxaan xiiseeya la wadaag. Haddii ay tahay mar labaad inaad soo booqato channelkeena waxaa ku leenahay mar labaad soo dhawow adigane. Wassalaamu calaykum.